السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب الشانل كجرتا aad baad salaamantihiin meel kasta joogtaan Ramadaan mubaarak waa mar kale iyo muuqaal cusub. Always say less than necessary. haddii aad akhriday buugga uu qoray Robert Greene ee 48 xeer ee awoodda ama The 4 Laws of Power waxay u badan tahay inaad maqashay kelmaddan always say less than necessary badanaaba ku hadal kooban ama inta ay lagama maarmaanka tahay inaad ku hadashaa. muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 3 faa'iido oo waaweyn oo laga dhaxlo aamusnaanta. waxaad soo ogaataa inay jiraan waqtiyo aanay habboonayn aamusnaantu oo ay abuuri karto shaki, balse marka aad ku isticmaasho meesha ku habboon aamusnaantu aad ayay u faa'iido badan tahay. faa'iidada koowaad, waxaad u muuqanaysaa qof awood badan. dadka awoodda badani waxay dadka kaga yaabiyaan oo ku cabsi geliyaan ama ay adeegsadaan hadal kooban. inta badan ee aad hadashana waxaa kor u kacaya jaaniska aad ugu muuqanaysid qof nacas ah. haddii aad la kulanto qof hadal badan naftiisa ka hadlaya waxyaabaha uu ku fiican yahay soo bandhigaya, waxa uu kula muuqan doonaa qof aan isku kalsoonayn oo jaha wareersan. Louis XIV ama Louiskii 14aad oo ahaa boqor Faransiis ahaa aadna u aamusnaan badnaa ayaa waxa uu aad u argagax galin jiray oo uu aad u cabsi gelin jiray shaqaalaha iyo la taliyayaasha qasriga ku nool ee ku xeeran. badanaaba ma uusan hadli jirin ilaa marka talo iyo tusaale loola yimaado mooyaane. marka talooyin iyo hawlo shaqo loola yimaadana waxa uu ku soo gaabin jiray kelmad uu caan ku ahaa, taasi oo ahayd waynu eegi doonaa ama we shall see. taasina waxay aad u argagax galisay la taliyayaashii iyo shaqaalihii ka agdhowaa. Louis XIV wuxuu ahaa nin aad u awood badan, aamusnaantiisuna waxay ka mid ahayd tiirarka awooddiisa. inkasta oo aynaan inagu boqor ahayn, haddana waxaynu isticmaali karnaa aamusnaanta si aynu ugu muuqanno ama aynu u noqonno kuwa awood badan. hadalkaagu wuxuu noqonayaa mid macno iyo miisaan leh marka aad tahay qof inta badan aamusan. waxaad noqonaysaa qof aan la saadaalin karin oo aan si dhib yar loo akhriyi karin, dadkana waad soo jiidanaysaa. faa'iidada labaad, waxaad baranaysaa sida dadka loo akhriyo. haddii aad tahay qof badan aamusan, waxaad dhegaysanaysaa oo u fiirsanaysaa hadallada dadka kale. waxaad kala saaraysaa dadka beenta sheegaya iyo kuwa runta sheegaya. waxaad fursad u haysataa inaad fahanto oo akhrido luqadda jidhka ee dadka kale iyo inay iswaafaqsan yihiin hadalkooda iyo dhaqdhaqaaqa jidhkoodu. marka dambe ee ay aamusnaantu caado ku noqotona waxaad aad ugu fiirsanaysaa oo aad u kala saari karaysaa ficilada yaryar adigoo eegaya waxa ay dadku samaynayaan. awoodda aad qofku akhriyi kartaa waa awood aad u weyn, waxaanaad ku baran kartaa oo keliya inaad aamusnaato. faa'iidada saddexaad, marka ay kelmaduhu afkaaga ka soo baxaan dib uma soo celin kartid. uma baahnid inaad ku hadasho hadal aad ka qoomamayn doontid. aamusnaantu waa hab aad u weyn oo kaa caawinaya inaad naftaada kantaroosho ama xakamayso. mararka qaarna waxaa laga yaabaa in madaxdaadu si xun kuula dhaqmaan oo aad adiguna aad uga cadhooto. waxaa laga yaabaa inaad ku cadhabaxdo oo ku xanaaqdo isla waqtiga, balse aad ka qoomamooto waqti dambe. taasina waxay galaafan kartaa shaqadaada iyo mustaqbalkaaga. carabkaaga xakamee, istaji oo si degan u dhaqan. hubi inaad u falceliso si kabaaraan degid ku dheehan tahay intii aad si buuxda u cabiri lahayd dareenkaaga ama mashaacirtaada. xataa haddii uu maamulkaaga ama madaxdaadu ay kaa qaldan yihiin, inaad si degan u falcelisaa waxay aad jaanis kor ugu qaadi karaysaa in aad shaqadaada iyo sharaftaada labadaba ilaashato. balse haddii ay madaxdaadu joogteeyaan inay si xun kuula dhaqmaan, waxaa habboon inaad ka tashatid oo aad ama si gaar ah ugu soo bandhigtid hawsha ama aad shaqadaba iskaga tagtid. aamusnaantu waxay leedahay faa'iidooyin aad u badan. haddii aad qaar kala hayso, adigu nagula wadaag qaybta commentiga. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkuna intaasuu ku egyahay.